asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalayaal waan idin salaamay dhammaantiinna meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan waa walaalkiin sheekh cabduraxmaan iyo mar kale iyo fiidiyo cusub biidni illaahi tacaalaa maanta waxaan doonayaa inaan soo gudbiyo suurad aad u qiimo badan waa suuradda la yidhaahdo suuratul waaqica suuraddaas qofkii akhriyo wakhti go'an oo aan sheegi doonno oo soo socdo waxa uu noqonayaa qofkaa isaga ah qof allah subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay khani weligiisana kama cabsanayo faqri inuu asiibo inta uu nool yahay biidni illaahi tacaala waa mujarab mar haddii lagu yidhaahdo waa mujarab bimacnaa waa la tijaabiyey weeye oo horaa loo ogaaday arrintaas inay xaqiiqo tahay waa la ogaaday waa la tijaabiyey waa mujarab haddii lagu dhaho sidaa u fahan isla markiiba waxaa la doonayaa wakhti go'an oo mujarab ah oo la ogaaday oo la tijaabiyey oo miro dhal ah inaad fiiriso in wakhtigaa aad akhrido biidni illaahi tabaaraka wa tacaala hal mar laba mar saddex mar hadba inta aad ka gaadho maalin kasta wakhtigu waa goorma wakhtigu waxa weeye qabla salaata duhur salaada duhur horteeda hal saac ka hor inaad weyse qaadatood laba ragcadood ama ka badanba wixii ilaahay kuugu talagala oo awooddaada aad tukato intaa kadib suuradda aad bilowdo hal mar haddaad ka gaadho laba haddaad ka gaadho saddex haddaad ka gaadho inta aadaanka lagu dhufanin inaad akhrido kadib markii la aadaamo oo salaada la tukado duhurkaa kadib haddana aad dhammaystirto ood akhrido iyadana sidoo kale mar iyo laba iyo saddex wakhtigaas isaga ah ayaa ah wakhti mujarab ah oo la tijaabiyey insha allahu tacaala adigana waad fiirin kartaa wakhtigaa isaga waad isku dayi kartaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala salaada duhur ka hor inaad hal saac ka hor iyo hal saac kadib inaad wardigaaga ka dhigato suuradda la yidhaahdo suuratul waaqica adigoo niyada ku qabsanayo in allah subxaanahu wa tacaala khani iyo hodankaa dhigo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waadna noqonaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inama alacmaalu binniyaad baa layidhi camal walba waa niyadaysa niyada aad ku qabatay unbaa camalka uu kuu noqonayaa qalbiga ku qabso inuu ilaahay khani kaa dhigayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waad noqonaysaa khani intaasaan doonayay maanta walaalayaal inaan idinla wadaagsado waxaan doonayaa janalka inaad sabskribe ku samaysaan fadlan amar ma aha waa codsi janalka sabskribe ku sameeya laygtana riixa si walaalo badan oo muslimiina uu u gaaro janalkan ugana faa'iidaystaan idinkana waad mahadsan tihiin 100% intiinii hore noola sii joogtay iyo inta nagu cusubba aad baan idiin soo dhoweynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh